بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي baa mahad iskale tabaaraka wa tacaala, mar walba nicmadiisu inagu cusub tahay. Wuxuu inoo abuuray inaan caabudno, cibaadadiisuna inay socoto ilaa inta aan ka geeriyoonayno, sida alla uu yidhi tabaaraka wa tacaala: wacbud rabbaka xataa yaأtiyaka alyaqiin. rabbiga caabud tabaaraka wa tacaala oo cibaadadiisa ha joojinin ilaa ay geeridu kaaga timaado. iyadoo ay taa tahay oo wakhti walba la rabo ruuxu inuu ilaahiisa caabudo oo camal u dhoweeyo dadaal la yimaado, ayaa haddana waxaa jira jaanisyo iyo fursado si gooniyo ilaahay inoo siinayo tabaaraka wa tacaala, si aan ula nimaadno dadaal ziyaada ah. mawaasim iyo wakhtiyaa jira layna siinayo. wakhtigan hadda aan joogno waxaan ku jirnaa 10kii bisha carafo ama bisha dilxija u horeeyey. waa 10 beri oo aad iyo aad u qiimo badan. ilaahay tabaaraka wa tacaala hibe uu ina siiyey weeye, ummaddan ugu deeqay. waa maalmo mudan inaysan ina dhaafin inagoo ishalmaansan ama adduunyada ku mashquulsan. jaaniskaas ayaa nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, oo wuxuu leeyahay: maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiiha axabu ilى اllahi min hadihi اlayaam. ma jiro camal wanaagsan oo la sameeyo oo ilaahay uu ka jecel yahay 10kan beri camalka la samaynayo. si kale haddaan u dhahno, camal la sameeyo oo wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaado wuxuu ugu fadli badan yahay, uguna ajir weyn yahay, ilaahayna ugu jecel yahay markii la sameeyo 10kan beri ee bisha carafa u horeeya. maalmo mudnaantaale weeye. markuu sidaa nebigu sal alla alayh wasalam saxaabada ugu sheegay baa waxay yidhaahdeen: rasuul ilaahayow, ma xataa jihaadka, yacni 10 beri oo jihaadkiiyo goobaha furinta lagu qaato iyo 10 beriyooda acmaashan kale saalixa aad ku qaadato, ma 10kanaa ka fadli badan oo ma gaari kara miyaa? markaasuu nebigu wuxuu uhi sal alla alay slam: xataa jihaadka camal saalix oo kale oo maalmahan la sameeyo ayaa jihaadka ka fadli badan. allaahuma ruux naftiisii iyo xoolihiisii goobta furinta geeyey oo aan waxba la soo noqonin mooye, naftiisiina waa ku tagto, waa ku shahiiday, xoolihii uu la tegayna meeshay ku tageen. ruuxa mooyaane jihaadka intiisa kale iyo noocyadiisa kale waxaa ka fadli badan camalka 10ka beri la sameeyo. 10ka beri la sameeyo ee saalix ee wanaagsan ee ilaahayna jideeyey, nebi maxamed sal lla alay slm lagaga dayanayo, ruuxuna ilaahay dartii ula jeedo uusan dan kale ka lahayn. camalka noocaasa waa maalmihii marka laga faa'iidaysan lahaa. waa afdalu ayaami dunya, sida xadiid kale ku timid. adduunka maalmihiisa, sanadka maalmihiisa, maalmaha ugu fadli badan waa. habeenadoodana allah ku dhaartay tabaaraka wa tacaala, wuxuu yihi: waalfajri walayaalin cashr. shay hadduu ilaahay ku dhaarto tabaaraka wa tacaala wuxuu kutusayaa shay yacni mudnaan leh oo weyn inuu yahay buu kutusayaa, shay ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed wax xusuusin inaan maalmahan ka faa'iidaysano. nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam: waxaad badisaan ilaahay dikrigiisa oo tahliisha laa ilaaha ila allah, tasbiixdoo subxaana allaahi ah, xamdigoo alxamdu lilaahi ah, istikfaartoo yani astakfirullah ilaahu ii dembi dhaaf ah. dikrigaasi carabka badiya. camal saalixa marka la yidhaahdana waxaa soo gelaya wax kastoo ilaahay kuu dhoweynaya. salaadaha sunnada inaad badsato, sadaqada inaad badsato, maalmahan inaad soonto marka laga reebo maalinka 10aad oo maalinka ciidda ah. inta kale 9ka kale inaad soonto, in aad maalan waxa way qur-aanka akhriskiisa badsato, carabkaagu inuu ilaahay dikrigiisa ku qoyanaado,
dadka masaakiinta iyo dadka dhibaataysan inaad caawiso. camal saalixa marka la yidhaahdayo waxaa soo gelaya wax kastoo ilaahay loogu dhowaado oo alla jecel yahay tabaaraka wa tacaala. marka jaaniskaa aynu ka faa'iidaysanno, gaar ahaan soonka wuxuu isagu gooni ku sii yahay iyadoo la soomi karo 9 beriba la wada soomi karo sida saxda ah, haddana maalinka 9aad buu soonku mudnaan khaasa sii leeyahay. oo nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablah waasanata alatii bacdah. maalinkaas 9aad ee carafo ee xujaydu ay banka carafo taagan yihiin, maalinkaas inuu ruuxu soomo, dadka xujayda maaha laakiin dadka kalena xajka aadin, inuu ruuxu soomo oo soon la yimaado, wuxuu nebigu yuri sal lla alay wasalam ilaahay waxaan ajir kaga sugayaa inuu ku dhaafo dembigii sanadkii hore iyo dembiga sanadka soo socdooda maalinkaas soonkeeda inuu ilaahay ku dhaafo tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed maalinkaana ugu yaraan haddaadan maalmaha kala soomin, maalinkaas 9aad soonkeeda insha allahu tacala inaad ku dadaasho ugu yaraan. cibaadaadkaana insha allah la badsado. maalmaha gaar ahaan habeenkuna fadli way leeyihiin, laakiin maalmaha fadli siyaada asiile. ilaahay tabaaraka wa tacaala 10ka dambe bisha ramadaan ayuu wuxuu geliyey habeenadeeda, leylatulqadri baa ku jirtee habeenadooda fadli siyaada alla siiyey. 10ka bisha carafo ugu horeysa ama bisha dilxijana maalmaheeda fadli siyaada alla siiyey. marka waxaa la rabaa inaynu insha allahu tacaala jaaniskaa ka faa'iidaysano. casaa walacalla ilaahay tabaaraka wa tacaala camal aad maalmahan samaysay in mustaqbalkaaga uu janno kugu geeyo, cadaabna aad kaga badbaado, in ilaahay tabaaraka wa tacaala wax weyn adduuniya aakhiraba kugu siiyo. marka jaanisyada noocan oo kale ah, innaga oo adduunyo ku mashquulsan oo ishalmaansan inaan dhaafin oo wuxuun aynu la nimaadno dadaala waa loo baahan yahay. ilaahay tabaaraka wa tacaala tawfiiqda hayna waafajiyo, wixii khayrana allah inoo fududeeyo, qulubteennana ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrka ha jeclaysiiyo. jazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.